بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقتنا لحد 10 أما دروستني فن التعامل مع الأطفال وإنه قاعد لنا تربية عرورتي بربارنت ونكسن 10 كان وكير دويها 10 ذي كوري 10 ذي كوري كانوا 15 أهيد أنت بدنا حين وقاعد لنا تمهيد بأهايين أما هرودع يعني قفك شخصي إنه دونين إن تربيينه ama ilmaha aynu doonayn inaan tarbiyeyno tarbiyadooda wanaagsan waxyaabaha in yani looga sii diyaar garoobo ay muhiim ka tahay oo intaana ilmuhu dhalan ka hor in la sii diyaar garoobo ama ilmaha loo sii sameeyo ay muhiim ka tahay ayaan ku soo qaadanay laakiin casharkan waxay ka dambeeyda waxaan yani la tacaamuli doonaa qof nool shakhsi jira oo nool ama yani uurka habartii ku dhex nool oo yani maskax iyo aqli iyo garaad shaqaynaya baan sidii loo dhisi lahaa la tacaamuli doona ama uurka ku jira ama banaanka ha joogo inta badan waxaynu aragnaa ilmaha qaar inay noqdaan ilmo yar yani ka kan oo madax adag oo yani qalafsan oo caniid ah oo la dhihi karo waa aqal waalidiin ama sifaadkii caasul waalidiinka oo dhan ku sifaysan ilmuhu inay sidaas noqdaan marka yani macal asaf inaan kelmadda isticmaalo anigu aad ugu xun ilmuhu inay sidaa noqdaan waxyaabaha sababa waalidka ayaa qayb ka noqda iyagoon isdareensanay yani kelmad aad u weyn laakiin xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay yani waalidka ogaal la'aan waxa ay sameynayaan kas uma sameyn ilmahaada ha halaabaan ama caasi ha noqdaan uma sameynayaan laakiin waxyaabihii ilmuhu ay xaqa u lahaayeen in la siiyo qaar ka mida waa laga yaabaa ilmihii inaanay wada helin oo nusqaan ku jirta darteed ilmuhu ay sidaa u noqdeen waxaan inta badan aan aragnaa ilmaha marka ay sidaas oo kale naga noqdaan markaanu rabno inaan ilmihii aan u dareensiino inay khaldan yihiin waxaan ugu galad sheeganaa maandhow waan ku dhalay waan ku soo koriyay 9 bilood si good baan caloosha kugu waday 2 sano iyo dheeraad baan dhabta kugu hayay oo aan ku korinayo ku kolkolinayo dib iyo dhaxan iyo dhulba ka ilaalinayay kaamaan mudnayd sidaan inaan dareensiino dareenka nagu jira waalidnimo dareenka waalidnimo adiga kugu beeran oo aad fahamsan tahay intaad ilmahaaga u soo gashay dareenka inaan dareensiina isku dayna waxa suurtagal marka ilmihii in ay yani wixii aad ka waaninaysay marka ay qaataan anugii yani caniidka hay madaxa adka inuu wixii aad ka waaninaysay markaas uu ka laabto ama uu ka tanaasulo laakiin macnaheedu ma aha dareenka adiga kugu jira inuu ku beermay isla markaas waxa laga yaabaa inuu gar qaatay inuu fahmay mowqifka inuu ku khaldan yahay qof bini aadamka garta uu qaata waa uu garta qof aan gartu qaban ma jirto marka in yani meesha aan ka hadlayo ilmuhu inay gar qaataan oo inta la hadlo ama la wacdiyo wax la dareensiyo ma ah meesha aan ka hadlayo waxay tahay dareenkaas waalidnimo adiga kugu jira oo adiga ka hadashayna ku dareen adiga waxa kugu dhex nool ee aad yani qabto ee ah in ilmahaaga yani aad dareensantahay ilmahaaga waxa aad u gashay dareenka noocaas ilmahaagu inay dareensan yihiin haddii aysan dareensaneen nusqaan aysan ku dareemin baa ku jirta yani oo haddaysan ilmuhu dareensaneen in la dhalay la soo koriyo lagu dhib mutay qof inta dareensani kama suurtawdo inuu caasi noqdo ama uu qof caniid oo aan yani ku dhagan nuglaan oo noqdo marka in ilmuhu aanay dareensaneen dareenkaas ayaa keeni karta ilmuhu inay caaqil waalidiin ama ay noqdaan yani ilmo yani caniid oo aan waalidka u dhagan nuglayn waxyaabaha marka nusqaanta ilmuhu uga jiri karta waxa kamid ah 9 bilood iyo sugooda aad caloosha ku haysay ugu galad sheeganayso jacaylkii ilmuhu ay mudnaayeen naadan soo siin ilmuhu marka ay caloosha ku jiraan waxyaabaha ay mudan yihiin in la siiyo ay tahay number 1 waxa ka ah habeenka lagu afuufo ruuxda laga bilaabo ilaa ay banaanka u soo baxaan wixii ka dambeeya dana tacaamul kala bilowda laakiin habeenka wixii ka bilowda ilaa ay banaanka u soo baxaan waxa ugu horeeya ee ilmaha loo sameeyaa waa in jacayl la siiyo oo ilmaha jacayl lagu beero jacaylka ilmaha la siinayana lama siin karo ilaa 2 shay ilmaha uurka ku jira jacaylkaas yani ay u baahan yihiin xilliga in lagu beero qalbigooda lama sameyn karo ilaa 2 shay ilmuhu ay naga helaan ilmaha uurka ku jira ilaa ay 2 shay ka helaan ma siin karto midda koobaad waa al-hubb waa waxa la yiraahdo ar-rahma iyo tawaasul waa inay ka helaan waxa la yiraahdo naxariis ilmaha naxariista waxaan uga jeedaa calooshaada inaanay xabsi ku noqon yani calooshaada inay ilmuhu ku dareemaan amni iyo istiraaxo iyo raaxo meesha ugu dambeysay janno inay ku jiraan inay u arkaan marka amni iyo istiraaxo kuma dareemi karaan ilaa inaad ka ilaaliso waxyaabaha ilmihii dhibaya waxa dhibaya inaad inta fahamto aad ka ilaaliso un bay ku dareemi karaan waxa kamid ah buuqa iyo sawaxanka iyo qaylada
يعني waxyaabahaas ilmuhu dhib bay ku yihiin inta badan waxa laga yaabaa hooyooyinku waxa inay dareensanaan iyadoo xaflad taagan baad arkaysaa hooyo uur leh oo 5 bilood 6 bilood iyadoo xaflad taagan oo xafladii xaflad maxaa lagu hayaa music yani qalbiga ka dhawaaqaya yaala buuq iyo qayla taala waxaan loo dul qaadan karno shakhsiyan qofka u dhibayo magaaladii baa laga yaabaa inay iska wareegayso baabuurta maanta midkaan barac hoonkaas la yeerina adiga inuu ku dhibaya suurtagal qayladii buuqa adiga inuu ku dhibayso fama baalul marka canuga yara janiinka maxaad u malaynaysaa marka xaaladiisa oo laga yaabo dee adigu waxaan inaad in badan maqlayso u dul qaadan karto laakiin isaga maqalka ku cusub jawiga ku cusub jawi dhibayo inuu soo noqdo marka waa qasab in laga ilaaliyo buuqa iyo sawaxanka iyo qaylada midna waa inaan fahamno culimada tarbiya waxay dhahaan ilmaha buuqa iyo sawaxanka iyo qaylada tirada badan ku kora oo inta badan guriga ay ku nool yihiin يعني guri buuq badan oo odagii habartu isku dhagan yihiin laba qofood buuqayda dad buuqay buuqa uu ku dhex kara ilmo waxay noqdaan buuqa u nugul oo dhinacooda ka raaca dhooti anug yani aanad wax yar hal daqiiqo aadan fadhi ku hay karin oo maanta dhanbood xagga ka dhax xagga ku bood qaylo ku jira un buu noqon laana de meeshii ugu horeysay maskaxda wax ku beermayeen baa waxa ku beerma buuq iyo qaylo marka ilmaha inta ay yani uurka ku jiraan waxa qasab ah laga maarmaan ah in jawi degan iyo jawi maaragtaan xasilan environment-ga in yani ilmahaas ku xeeran in la ilaaliyo qasab weeyaan marka buuqa iyo qaylada ilmaha dib ay u keeni karaan waa inaad ka ilaalisaa kuma dareemayaan abni iyo raaxo meel buuq iyo qaylo ay ka yeerayso taas waa mid kale waxyaabaha inta in laga ilaaliyo waxa kamid ah wax haba yaraatay ilmaha ciriiri gelin kara wax ay ciriiri ku dareemi karaan inaad dhar ciriiri xirato inaad yani fadhiga kale fadhi qaab daran jiif qaab daran waxyaabahaas oo kale calooshii oo kale inaad saarato yani ilmo kale waxyaabahaas oo kale waxay geli kara ilmi ciriiri haba yaraatay wax uu dareensi kara inaad ka ilaaliso waxyaabaha kale ee muhiimka tahay runtii ilmaha in laga ilaaliyo waxa kamid ah in cuntooyinka aan wanaagsaneyn oo de iska junk foodska oo aan wax yani nafaqa ama wax fitamiin aan ilmaha iyo hooyada u lahayn iyo sidoo kale cuntooyinka waxyaabaha dadku ay qaataan oo aslan ba aan banaanayn sida muqaadaraadka iyo waxa la midka ah muqaadaraadka مثلا hooyadu hadii ay muqaadaraad isticmaasho automatic ilmahaas waa xaqiiq ilmahaas inay isticmaali doonaan muqaadaraad ama jirkooda uu muqaadaraad la qabsan doono ilaahay baa hidaayada iska loo ilmaha ka jeedin kara jirkoodu si ilmahaas uu ku jirtaa muqaadaraadkii waa uu la qabso hooyada hadii tubaaka isticmaasho sunta tubaakada laga helo baasha maadadaas tubaakada ku jirta nicotine la yiraahdo ilmaha jirkoodu ku jirtaa ilmahaas jirkaadu waa ay ku beerantahay idan ma foga inuu ilmuhu u wacdo inuu hadhowto waxa isticmaalo hada sigaar cabto ama aabuu uu cabo adiguna de maalin kasta lagu agcaba waxa la yiraahdaa qofka hadii sigaar hal xabo sigaar lagu agcabo isagoo asoo afar cabay la mid ah afar xabo sigaar isagoo cabay la mid ah sababtoo ah qaaci iyo wixii awalba sigaarku qaac la jiidayo adigana dhinaca ka jiidade marka aabaha laftiisa haduu sigaar cabo horta automatic inuu iska dhaafo waa qasab waa laga maarmaan sababtoo diintiisa aakhiradiisa ma aragtaan ay halis ku jirta hadii kalena waa inuu hooyada kala fogaado waa inuu ilmahan ka taxadara ilmahan hooyadaasi afar xabo sigaar markay cabto canuga urku ku jira xabo sigaar inuu cabay la mid afar xabo sigaar inay cabtaan waxay ka imaanaa adoo hal xabo ku agcaba fiiriya marka ilmaha jirkooda hadhooti sun aanay inta qabatimaan u jiida inay ay sigaarkii bartaan ama ay muqaadaraadkii bartaan ha ku beerinin cuntooyinka sidoo kale ilmuhu ay la siinayo cuntada yani aad qaadanayso cunto ilmaha jirkoodii يعني dhismaha jirkooda kaalin muhiim ka qaadato inay noqoto cunto nafaqo leh cuntooyinka balance diet-ka ah oo ma aragtaanay maadooyinka ilmaha jirkooda uu baahan yahay laga helayo jir baa dhismaya meeshan biyo ayaa jir isu bedelay lafa sameysmaya derbiga marka la dhisayo wuxuu u baahan yahay jirkaasi u baahan yahay marka derbigan dhagax u baahan yahay shamiidu u baahan yahay oo waxa uu u baahan yahay mid kamid ah hadii la weydiiyo derbiga inuu sidii la rabo u dhismin baa laga yaabaa sidaas oo kale ilmaha jirkoodu ama lafaha sameysmay iyo jirka dhismaya wuxuu u baahan yahay maadooyinkaas uu u baahan yahay cuntada laga helayo inaad isticmaasho waa qasab marka hadii mid kamid ah nusqaan ku dhacday dhahan culimadu mid kamid ah hadii nusqaan ku dhacdo automatic ilmuhu asaaba ku weydiinaya oo hadii magnesium-ta cuntada calcium iyo magnesium potassium cuntooyinka laga helo u baahan yahay magnesium-tiiba hadii nusqaan ku dhacdo oo yani cuntooyinkii magnesium-ta laga helayo ilmihi aysan qaadan ee jirkiisa maadada uu u baahan yahay laga waayo automatic hooyadu fariinta u soo dhiiban hooyadii waxay aad u jeclaanaysaa cuntooyinka magnesium-tu laga helo maadadaas cuntooyinka laga helo ay aad u jeclaanaysaa mooskii iyo cambihi iyo cuntadaas bay aad u ishtahaynaysaa
waxaad aragtaan hooyooyinka aan uur kale inta badan dhanaanka jecel yihiin marka kale inaysan jeclayn baa laga yaabaa maxaa keenay hadda fariin kale oo ilmihii uga timaaday marka ilmaha inaan inaguba ku baraarugsanaano oo xagga qidaa'iga ilmuhu ay istiraaxo iyo raaxo ka dareemaan oo ay amni ka dareemaan oo ay sidii ay u rabeen inay wax u quutaan ay u helaan waa laga marmaan si ilmihii marka ugu beermo jacayl iyo kalgacayl oo u fahmade inuu yahay shakhsi muhtam qof la danaynayo la qiimeynayo inuu yahay u dareemo qodobka labaad waa tawaasulka ilmihii in xiriir joogto ah la sameeyo waxa laga yaabaa hooyo 9 bilood canugu inay uurka ku siday hal maalin inaysan la sheekaysan marka hadhowti ilmahaagu inuu ka fogaado oo aad uu canug amba kuuba soo dhawaan amba cilaaqo kula lahayn inuu noqdo maxaad ku diidaysaa marka hadhowti xad la yaabaysaa 9 bilood uurka ku siday 9 bilood uurka ku siday wixii aan sheegaynin kama aadan ilaalin xiriirna lama aadan yeelan uurkaaga xabsi uu ahayba marka xabsi uu ku jira amal waxba uga ma doonayn marka ilmaha in cilaaqo la yeesho oo xiriir joogto ah la sameeyo waliba laba shay baa la sameeyaa marka cilaaqada la yeelanayo in la taataabto taxassus iyo maaragtaan in la sheekaysto oo ilmihii xiwaar la sameeyo marka la sheekaysanayso lafteeda luqad gaar ah hadal degan oo jalacsan jawi degan marxalad uu fahmo inaad isaga la hadlaydo inaad kula hadasho marka dadka caadiga la hadlaydo maanta dhan iska qalqalayso dad la hadlaysa markaad isaga la hadlayso iyo markaad qof kale la hadlayso inuu kala garanayo luqad uu kala fahmayo jawi uu kala fahmayo inaad kula sheekaysato marka la sheekaysanayso inaad dareensiido inaad isaga la hadlayso oo aad taabato waxay dhahaan culamaa nafsi iyo tarbiya ilmuhu jacaylka ay ka helaan taabashadaas iyo in la sheekaysto waliba biluqatin khaasa luqad gaar ah iyaga oo khaasa lagu la sheekaysto jacaylka ay ka helaan nolosha intay nool yihiin ma helaan bay dhahaan culimadaas qalbigooda sida ay ugu beer taabashada iyo ihtimaamka la siinayo inta uurka ku jiro shakhsi dad lama noola dad ma arko noolahaas kaligii meesha ku jira ee uurka ku jira shakhsiga uu ka helo wehesha ee sida uu qiimeeyo ee sida uu qadariyo jacaylka uu ka helayo inta noloshiisa ka dhiman waa ku filan yahay dhahan marka jaaniskaas inaan dayacin waa ilmaha habeenkii oo kale marka hooyo ay seexanayso ay maamada ay seexanayso ama gabadha uur kale ay seexanayso odago aabaho kale sidoo kale waa laga rabaa inuu inta soo ag seexday isagana gacanta caloosha ka saaro ilmihii la sheekaysto isaguna luqad gaar ay fahmi karaan oo jilacsan oo dekan oo ay fahmi karaan kula hadlo marka intaas oo dhan ilmaha laga ilaaliyay oo jacaylka ay u baahnayeen la siiyay oo calooshii ku dareemay amni iyo istiraaxo iyo janno inay taa ku dareemo banaanka markay u soo baxaan isla jawigaas aad ku soo bartay caloosha oo ku soo korisay caloosha oo maskaxdiisu ay la soo qabsatay banaanka ku imanaya wuxuu noqonayaa marka ilmo ku soo dhawaada aan ka fogaan amniga iyo istiraaxada iyo raaxada u arka inuu hadalkaaga maqlo inuu kugu dhawaado inuu agta kaaga jiro ilaa aad kala dhimataan tan iyo maalinta kala dhimataan anigu hoosta kaaga jiro noqonaya oo inuu jirkaaga meel ka mid haysto adoo wadada isla maraysan inuu suulkaaga qabsadaha ugu yaraato inuu maradaada ku dhaganaadaha ugu yaraato inuusan ka fogaan inuu garba ku saaro inuu garabkaaga qabsado inuu dhabtaada ku seexdo anigu inta halka meesha ka helada deganaanta iyo istiraaxada iyo raaxada u arka inuu jirkaaga meel ka mid ah uu cilaaqo la yeesho anigu sidaas ah uu noqonaya imagine farxadda aad dareemi lahayd halkan ba ka dareemaya anigaagu markuu inta asagoo 5 jir ama 7 jir ah ama 6 jir ah ama 8 jir ah anug marka iskuulgeedo kale habeenkii marka ilmuhu ay banaanka iska ciyaarayaan dariska oo qayladooda aadan meeshan ka joogi karin anugaagu intuu dhabtaada ku soo seexdo oo uu xidigaha fiiriyo isagoo xidigaha fiirinayo quraankii maanta dhan uu soo baranayo korkaaga ku aqrinayo adiguna aad madaxa u salsalaaxayso qurrata ayn inta la sheegayo taas weeyaan ilmahaaga marka aad naxariis ilaahay ku siiyo arkayso oo ku ildoogsanayso markaas marka jawiga noocaas ilmo inay ku noolaadaan oo ilmo aanad weyn oo buuqooda iyo qayladooda aadan ka joogi weyn aysan noqon oo ilmo degan oo aad ku raaxaysato la joogooda adiga agtaada aan ka fogaan ilaa maalinta duqoodada ajis noqotana inay dhabta kugu hayaan oo haduu cunto ku siinayo dhabta ku saara oo dhabtiisa canug yar amal kugu kolkoolay ilmaha inay noqdaan meeshaas bay ka soo bilaabataa marka cilaaqadaas adigu aad soo hagaajisay waligeed way socon doontaa wax qalbiga ku beeran bay noqon doontaa waxaan ka hadlaynana waa de maskaxdan waxyaabaha lagu beerayo inay noqdaan wax positive ah oo shakhsigii wanaag u ziyaadi karo oo shakhsigii dhisi kara marka
يعني عشر كان واحد مدة وقت يقولون إلى دير هذا أنت كسكوبية وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.